Assalaamu calaykum. Isdilkii ugu liyaabka badnaa taariikhda aadanaha. Ronald Abbas markii uu go'aansaday inuu isdilo, Ronald waxa uu adeegsaday habkii ugu fududaa ee isku dili lahaa oo ahayd inuu iska soo tuuro daaqada fooqii uu deganaa. Waxa uu iska soo tuuray dabaqii 10aad ee uu deganaa. Waxa uu uga tagay qoyskiisa fariin inta aanu isdilin, taas oo ku tibaahay inuu noloshiisa ku noolaanshaheeda ka hun yahay. Laakiin bishii Maarch 23keedii 1994 markii la helay midkiisa, waxa la sheegay in ay ku taalo madaxiisa rasaas, isla markaan aanu dhiman dabaqii uu iska soo tuuray. Markii xaqiijinta la sii balaarayna waxa la ogaaday in ay habadu ka soo baxday mid ka hooseeya dabaqii uu iska soo tuuray daaqadiisa, isla markaana ay madaxa ka qabsatay oo uu u dhintay. Dabaqaas ay ka soo baxday rasaastu oo ahaa mid ka 9aad waxa sanado badan deganaa lamaanida ah, kuwaas oo jaarkooda dhexdiisa aan ku ahaa khilaaf iyo dagaal joogto ah oo u dhaxayn jiray goor walba. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in markii wiilku iska soo tuuray dabaqa uu odaygu ugu hanjabay haaskiisa baskoolad uu haystay, aad ayuu u si aan ku talagal lahayna waxa uga yeeray shanqadii rasaasta, laakiin rasaastu aad bay uga fogeyd haaskiisa. Isla waqtigii uu soo tuuray, wiilkuna daaqada ka baxday oo madaxa ka haleeshay, wuxuuna u dhintay sababteeda. Filim Hindi ah oo badan oo isla markaana aad daawatay ayaa maskaxdaada ku soo dhacaya oo sidaas ma aha. waxa ay maxkamadii ku ogtay lamaani siiba odayga dil aan ku talagal lahayn ee waxa uu ku dooday in isaga iyo haaskiisu ay goortii alla keenaba uu dagaal iyo khilaaf ka dhex dhaco, isagana ay aadiisu tahay inuu mar walba dil ugu hanjabo, baskooladana uu malaynayay inay maran tahay oo ay sababtu tahay mar walba iyadoo maran ayuu ugu hanjabi jiray. waxa baaristay intii lagu guda jiray la helay lamaanihi mid kamid ah qoyskooda oo ay isu dhow yihiin, kaas oo sheegay inuu arkay labada isqabiilkooda oo baskoolada rasaas ku guraayo mar uu soo booqday. markii sababtii la baarayna waxa la ogaaday in ay aad nolosha uga akirnayd oo isla weydiistay kadibna ay u diiday, isla mar ahaantaana uu ogaa in aabihii ugu hanjabo baskoolad oo maran mar walba. waxaana uga talagalay marka xigta in odayga kaga taqluuso islaanta hooyadiisa. alla baxalka naxariis darana. nasiib darase rasaastii ma ay heleelin hooyadiisii uu ugu talagalay ee Ronald ay madax ka asiibtay oo sababteeda u godgaday. sidaasna waxay maxkamadii ku adeysay in tuunka dilka lamaanaha laga dulqaado oo uu inankoodu geystay. arrinka ugu yaabka badan hadalka aan kor ku soo husay baa waxa weeye in Ronald uu yahay wiilka ay dhaleen lamaanaha ee rasaasta uga riday baskoolada si uu aabihii uga dhameeyo hooyadii. markii uu daahay waqtigii uu aabihii hooyadii dili lahaa ee uu khilaaf ka dhexdhaci waayay labadiisa waalid, ayuu go'aansaday ilkii inuu isdilo. sidaas ayuuna iskaga soo tuuray fooqa baskoolada uu rasaasta ku ridayna hooyadiis u dhaaftay oo isaga madaxa uga qabsatay, kadibna dilaag iyo kii la dili lahaaba isaga ayuu noqday.